Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawade waqti kasta oo ay kuu tahay oo wanaagsan, Allah inaga aqbalo acmaasha suuban. Halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa qaybtii 6 ee buugga Zaad iyo Sahayda Ramadaanta. Qoraagu waxa uu ka soo hadlay hodanka jannada, qaybtanna waxa uu kaga hadlayaa siraha ku duugan sidii aad ku noqon lahayd mid hodan ah adduunyo iyo aakhiraba. Waxa uu ku bilaabayaa William iyo Thomas oo ah baadhayaal u dhashay Mareykanka ayaa daraasad ku sameeyay dadka hodanka ah iyo sida ay hantida ku sameeyeen. Waxay go'aansadeen inay warbixin ka soo ururiyaan dadka degan guryaha qiimahoodu yahay $1 milyan iyo kuwa haysta gawaadhida qaaliga ah ama muuqaalkooda ay ka muuqato hodantinimo. Waxa la yaab noqotay markii ay dadkaas soo ururiyeen inay ogaadeen in dadkani aanay dhab ahaan hodan ahayn, balse hantidan ay tahay mid ay ka deynsadeen bangiyada, mushaharkoodana bil walba laga goosto. Intaa kadib waxay isku dayeen inay dib u baadi goobaan dadka dhab ahaan hodanka u ah. Markii ay la kaashadeen baananka, waxay soo ururiyeen macluumaadka 500 oo qof oo haysta lacag gaadhaysa $1 milyan. Markii ay dadka la kulmeen, waxay ogaadeen inay yihiin dad aan guryahoodu qaali ahayn. Mid kasta waxa uu leeyahay 2 guri, mid uu degan yahay iyo mid uu kireeyo. Ma xidhaan saacado qaali ah, gawaadhi qaaliyana ma wataan. Waxay la mid yihiin dadka caadiga ah, halka kuwa aan wax hanti ah lahayn ee bangiyada deynsada ay u muuqdaan dad badhaadhay oo barwaaqaysan. Daraasaddan waxaynu u soo qaadanay inaynu ogaano inaan hodantinimadu ahayn waxa la iska dhigo ee ay tahay inaad wax walba qiimihiisa u yeesho, naftaadana aanad been u sheegin ee aad waajahdo waxa aad tahay. Xaaladaada dhab ahaaneed markaad ogaato, kadibna aad u jihaysato sidii aad hore ugu socon lahayd. Haddaba, qoraagu waxa uu leeyahay, ma kuu sheegaa sirta aad ku noqonayso hantiile adduunyo iyo hodan aakhiro? Hay dheh. Haa, dabcan. Haye, waxa uu leeyahay Islaam Jamaal waa qoraaga buugga markii aan jaamacadda dhameeyay waxaan bilaabay shaqadaydii ugu horeysay ee injineernimo, taasoo aan muddo badan darteed wax u baranayay. Dhanka kale, waxa igu jirtay hami ah inaan bilaabo heerka 2 ee jaamacadda, balse halkii semester fiigiisu waxa uu noqonayay 30 bilood oo mushaharkayga ah. Taasina waxay ka dhigtay riyadaydii mid mustaxiil ah. Mar kasta oo uu hamigaasi qaado, waxaan ka fikirayay sidii aan dakhligayga u kordhin lahaa, balse fikirkaasi waxa uu ku soo idlaanayay inaan ka tanaasulo riyadaydaas. Arrinku sidaas ayaa uu ahaa ilaa uu xalkii ii yimid. Qolkayga ayaa uu iigu yimid. Waxaa agtayda ka baxayay quraan. Sheekhu waxa uu ku akhrinayay cod macaan oo degan. Codkaasi waxa uu ii noqday jawaab cad waxa aan raadinayay. Waa uu ku celcelinayay, waxaabad moodaa inuu aniga ii akhrinayo. Waan dhegaystay. Waxa uu akhrinayaa aayadda ah: Man dha alladhii yuqridu Allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kathiira. yaa salaam. Aayaddu waxayna leedahay, yaa Ilaahay amaahinaya amaah wanaagsan oo uu u libin laabaa in fara badan. Waxaan idhi aniga Rabbigayow, isla markiiba waxay soo weeraray shaydaankii. Waxa uu leeyahay, maya, sidee ayaa aad ballankaa u qaadi kartaa? Mushaharkaagu xataa adiga kuguma filna. Istighfaarso oo ha ballan qaadin waxaanad samayn doonin. Rabbigaaga casiiska ahna been ha u sheegin. Mar labaad ayaan ku celiyay aniga oo ilmaynaya. Waxaan idhi aniga Rabbigayow, go'aankaas ayaan qaatay, waanan ku dhaqaaqay. Waxaan sugayay ayaamihii ka harsanaa inta uu ii soo dhacayo mushaharkaygu. Waxaan u qorsheeyay 10% inaan dar Ilaahay u bixiyo oo aan u qaybiyo 30 cisho ee bisha. Maalin walba waxa aan cunto u qaybin jiray dadka masaakiinta ah. Waxa aan siin jiray iyagoo aan weydiisan. Maalmo yar gudahood waxa aan dareemay inaan qani ahay iyadoo aanay jirin wax ku siyaaday mushaharkaygii. Farxad ayaa buuxisay laabtayda. Waxaabad moodaa inaan badhaadhaha iibsaday. Caqabado ayaa ila kulmayay mararka qaarkood, balse awood ayaan ku dhaafayay. Ilaahayna waxa uu iigu furayay albaabo fara badan. 60 maalmood ayaa ka soo wareegtay, waxaana ii yimid war. Shirkaddii aan ka shaqaynayay ayaa ii kordhisay mushaharkii kadib markii aan ku guulaystay dhaqaajinta hawl 2 sano cadilnayd. 3 bilood kadib waxaa la ii magacaabay madaxa shirkadda ee farac ku yaala waddan kale. Mushaharkaygiina waxaa laga dhigay 5 laab intii uu ahaa markii hore. 6 bilood oo aan faraca cusub ka shaqaynayay kadib, waxaan isku dhacnay qayb ka mid ah maamulka. Waxaanan go'aansaday inaan ka tago shaqadaasi oo aan waddankaygii u soo laabto. Mushaharkaygii wuu go'ay. Waxaan noqday bilaa camal, laakiin ballankii Ilaahay aan la galay ma uusan go'in. Waxa aan go'aan ku gaadhay inaan ku shaqeeyo xafiis yar oo aabbahay lahaa si aan uga dhigo shirkad weyn oo soo saar leh. 3 sannadood kadib, xafiiskii yaraa waxa uu noqday shirkad weyn oo ka howlgasha xataa dowladaha jaarka. Waxaan sidoo kale xaqiijiyay 3 sannadood
hadafkaygii ahaa in aan dhammeeyo waxbarashada heerka labaad noloshaydii oo dhan way isbeddeshay ilaa iyo maalintii aan bilaabay inaan amaah wanaagsan hormarsado xagga ilaahay. waxaan sidoo kale qoray buug nolosheeda wax badan ka beddelay, faatatnii salaad ayaa i dhaaftay. waxa uu noqday buugga loogu iibsiga badan yahay jasiiradda carabta iyo dhammaan waddamada muslimiinta ah. innaga ka Soomaali ahaanna buuggaasi waa ina soo gaadhay. haddii aad ilaa halkan ila soo gaadhay waad mahadsan tahay. qaybta xigtana la soco. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.